xaaladda kala guurka dalka waxa ay keentay in amniga faraha uu ka baxo waxaa badatay dilalka qaraxyada iyo falalka kale ee amni darro kuwaas oo intooda badan ka dhaca caasimadda oo ah meesha ugu badan ee xuduudda ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin madaxweyne Farmaajo oo doorashadiisu dadweynuhu ula baxay guusha shacabka ayaa sugidda amnigu u ahayd ajandihiisa koobaad ee uu ololihiisa ku galay isagoo oo ballan qaaday inuu isbedel muuqda la iman doono madaxweynaha ayaa sheegay inuu hanaan cusub hirgelin doono si ka duwan xukuumadihii horena uu ku koobnaan doonin cambaareyn iyo tacsi walow uu madaxweynuhu huri waayay tacsidaas waxaan rabaa inaan tacsiyeeyo shalay arrintii foolxumada ahayd oo dhacday ee qaraxa ahaa oo ay ku naf waayeen 6 qof dad badan ay ku dhaawacmeen runtii qaraxyadan waxay noqdeen wax soo noqnoqda oo aan dhammaan saas darteed dadka Muqdisho waxay isweydiinayaan goorta uu dhaqan gali doono ballanqaadkaas xilli 10kii maalmood ee ugu dambeysay Muqdisho oo kaliya ay ka dhaceen dilal iyo qaraxyo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof oo isugu jira shaqaale dawladeed oo rayid ah saraakiil ciidan iyo dad shacab ah oo dhamaantood ay saameysay amni darrada ka jirta Muqdisho sida oo ay tahayna madaxweynuhu wuxuu 6dii bishan hal maalin xilka ka wada qaaday taliyaashii ciidanka isagoo oo diriiska ciidanka xoogga dalka xiran warbaahinta ayuu u sheegay in dalku uu ku jiro xaalad dagaalkaas oo uu ku tilmaamay in uu yahay mid aan noqon doonin hal dhinac yaan maanta waxaan u cilaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo kaliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal haduu Ilaahay yiraahdo xaq ah bacdama aan xaq ku soconno Ilaahay inuu nala jir doono insha Allah maxaa yeelay anagu waxa naga go'an in ummadda Soomaaliyeed badbaadadeedii aan ka shaqeyno iyo horumarkeeda si qof walba uu nolol fiican u helo yaa naga go'an waxa qaybaha kala duwan maxaan ku raahdaa amniga ciidamada qalabka sida qof walba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxaan amar ku siinay inay heegan galaan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta runtii magaalada Muqdisho koow iyo guud ahaan gobolada dalka ay qayb weyn ka qaataan khubarada falanqeeya arrimaha ammaanka waxay isweydiinayaan macnaha dagaal laba dhinac ah xilli weerarada iyo dilalka hal dhinac ah ay sii xoogeysteen hadalkii madaxweyne Farmaajo kadib falanqeeyaashu waxa ay shaki gelinayaan inuu jiro qorshe cad oo wax loogu qabanayo ammaanka Muqdisho oo saldhig u ah dawladda Soomaaliya kaas oo ay ku cad yihiin goorta iyo goobaha xoogga la saari doono goobaha ay ka jiraan amni darradu على هذا المؤمن كوبجوك مقدشو